maayirka caasimada Soomaaliland ee Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteko oo ay weheliyaan xubno sarsare oo ka tirsan dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa maanta xariga ka jaray dhismayaal cusub oo dawladda hoose ee Hargeysa ay ku soo kordhisay sariibada Gobanimo ee magaalada Hargeysa xubno kamid ah gudida ganacsatada sariibada Gobanimo oo halkaasi ka hadlay ayaa maayirka caasimada waxay uga mahad celiyeen dadaalada iyo waxqabadka uu muddooyinkii u dambeeyay ku hawlanaa midhadhalkiisii u horeeyay waa kaayfaaya intii kalena hawsheedii buu inoogu jiraa si dhaqsaana wuu inoogu dhammaynayaa waddooyinkii buu inoo furayaa laamiyadii buu inoo samaynayaa maayirkeenna allaha guuleeyo wuxuu inoo samaynayaa istaankii buu inoo samaynayaa qudradda Soomaaliland halkay ku soo degtaa waa Gobanimo qudradda Soomaaliland 4 doox abaad ogtiin halka inoogu yimaada oo qudradeena wadanigu ay xoog u soo bilaabantay intuu madaxweyne Muuse qabsadayna aad loo dadaalay ilaahay madaxweynaha iyo dumarkiisa ilaahay ha guuleeyo ha noolaadaan warkiisi si wanaagsan bay beeralaydu u qaadatay beeralaydu si wanaagsan bay warkiisi u qaateen qudradii tay yeelatay baabuurtii way noo buuxsantay ma sha Allah waanu leenahay dayartiina aad ba uga faa'iideysatay marka istaankiina waxay noo banneynaya Cabdiraxmaan ilaahay ha ku guuleeyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee magaalada Hargeysa oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa sariibada suuqa Gobanimo ee khudradda oo 8% dhamaystirantay fayskii koowaad uu dhamaystiray gabi ahaanba marka laga reebo hal hangar oo isagana marka imika qaybtan hore aynu qaybino la bilaawi doono insha Allah taala maanta maayirkii caasimada halkan maraya xildhibaanadiisii golaha deegaanka maraya guul iyo farxad bay runtii noo tahay waxaynu ka warqabnaa inuu maayirku idinka idiigmaday inaad isdiiwaan gelisaan waxaad ogtihiin inaad doorateen hooyooyin aamin ah oo xul ah oo runtii taariikhdu xusi doonto oo idin hagar baxay oo hiil iyo hoob idin garab taagnaa oo habeen iyo maalinba runtii u soo jeeday sidoo uu hirgeli lahayd suuqaasi maanta aynu harkiisa hoos fadhino gudigaasi runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa gabagabadiina maayirka caasimada Soomaaliland ee Hargeysa oo isna halkaasi hadal ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay inaanay dib u dhici doonin hooyo dambe oo wadooyinka ku ganacsataa antii halka la baneynayay iyo dhibaatadii taalay waxaan aad ugu mahadnaqayaa gudiga soo doorateen hablaha iyo hooyooyinkaba ahaa ee sida garlaanta ay ku shaqeeyay annagu gudidaas aanu aaminay iyaga idin diiwaan geliyay iyaga hawsho dhan qabtay dhismihii markuu imika laba hangar dhamaadeen hal mid baa dhiman waxaan isla garanay si ka kala loo dhiso in kan oo tabaqtiya nasiib lagu qaybiyo idinkoo isku kalsoon hooyada koowaad iyo ka labaad ee mooye ta ku hadhay ka saddexaadna ha u dulqaadato ha sugto dhismuhu si dhaqso ku bilaabmaya si dhaqsaana uu ku dhamaanaya insha Allah taala waxaan qabaa kalsoonida hor noogu qabteen imika inaad noogu qabi doontaan waqtiga nasiibka insha Allah taala waxaanu ka dhigan doonaa imika 3 cisho ka bacdi weenu ka dhigan doonaa waxaanu ka dhigan doonaa maalinta Axadda in waqtiga nasiibka halkan ay yimaadaan gudidu halka hortiina ay ku dhaartaan halka la dhigo sanduuqa idinkoo isu dhan oo eegaya inuu qof waliba nambarkiisa qaato waxaan idinka ballan qaadaynaa in hooyo cadeeda fadhida aan lagaga tagin ee waliba cidii kale soo baxdana haga ka marka la weyneeyo labada laga dhigo marka la eegi doono